Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabadda wadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida kuwooda waaweyn ee Garmaal TV idii heesana waxaa ka mid ah Mahdi Guuleed ayaa dhex taagan isgoos siyaasadeed aan la fahmi karin. Haddaba xog dhammaystiran ayaan idiin haynaa. Muxuu ku saabsan yahay heshiiskii kala saxiixdeen guddiga farsamada xaaladda kala guurka AMISOM iyo Midowga Afrika? Xog dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa intaad daawanaysaan warka Garmaal TV. Xiisad ka dhalatay doorashada golaha shacabka ee ka taagan magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland. Haddaba waa sida xaalka magaalada Garowe oo kacsan. Xog dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa. Heshiiska lafta garanaya Axmed Madoobe ee kuraasta Hoob 56 iyo Hoob 126 muxuu dhalay? Warbixin dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu Ibraali ka hado Dani oo si degdeg ah ugu safray Imaaraadka Carabta iyo hub uu lacag ka bixinayo. Arrintan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu Ibraali ka hado. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka Garmaal TV iminkan u diyaar garoob ayagoo dhammaystiran. Aan ku bilaabay Mahdi Guuleed ayaa dhex taagan isgoos siyaasadeed aan la fahmi karin. Toddobaadkii dhamaaday 40 maalmood ee loo qorshay lagu soo gabagabeeyay jiritaanka doorashada Soomaaliya ee kuraasta golaha shacabka ayay ugu dambeysay si kadib guddoonka labada aqal ee madaxweynaha loo doorto. Waxaa la doortay ilaa hadda kuraas kooban, kuwa kalena waa la shaaciyay. Waxaana la qorsheynayaa in doorashada dhacdo toddobaadkan gudihiisa. Iyadoo howsha doorashada socoto ayaa waxaa dhanka kale taagan muran iyo tabasho durba lagu muujinayo kuraasta qaar ee doorashada la shaaciyay iyo hanaanka loo soo xulayo ergada dooranaysa xildhibaanada. Si gaar ah waxaan uga hadlaynaa doorashada gobolada Waqooyi oo waji wanaagsan doorashada u sameynaysa kuraasta laga dooranayo Xamar. Shalay oo Jimcaha Muqdisho waxaa ka dhacay kulana iskugu yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kuwaas oo aan ka xusi karno Boqor Cusmaan oo Maxamuud Boqor Burmudow, Senator Professor Axmed Ismaaciil Samatar, Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. kulankooda warbaahinta timinaysa waxay kaga dhawaaqeen inay ka baxeen doorashada Soomaaliya iyagoo ku hadlaya afka xubnaha gobolada Waqooyi ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Hadal laga jeediyay munaasabadda waxay inta badan eedeyn ugu jeediyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ay sheegeen inuu faragelin ku hayo doorashada gobolada Waqooyi. saacada kadib isla xalay Muqdisho waxaa ka dhacay kulan kale oo soo agaasimeen oo qayb ka yihiin xubnaha reer Waqooyi kuwaas oo lidka kulanka ka soo dhex muuqda Cabdi Xaashi. waxaana kulankaasi dambe ka soo dhex muuqday siyaasiyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed. xubnaha ka hadlay kulankaasi waxay sheegeen inay ku xun yihiin waxay tilmaameen gaf loo geystay sharafka ra'iisul wasaaraha iyo beesha iyagoo raaligelin ka bixiyay gafkaasi. siday sheegeen waxay nasab darro ku tilmaameen hadallada ay ku hadleen xubnihii kulanka horeeyay ku qabtay magaalada Muqdisho. haddaba markii laga soo tago qabsoomida kulamadaas daba socday waxaa la isweydiinayaa maxay ka dhigan tahay buuqa cusub ee ka soo dhaxyeeraya xubnaha ka matalaya gobolada Waqooyi ee Somaliland. mise ma laga yaabaa inuu curyaamiso sidii socoshada doorashada oo markii horeba caajis badan ka muuqatay. muranka siyaasiyiinta iyo dhaqanka gobolada Waqooyi wuxuu daaran yahay doorashada golaha shacabka. waxaase xubnaha labada kule ka dhex muuqday waa Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed oo dagaal xooggan ku dhex maray xilliga la dhisay aqalka sare balse markii dambena lagu guulaysan xaliyo murankooda. Mahdi Guuleed oo waayihii hore lagu tiri jiray inuu ka dhow yahay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa hadda u muuqda mid garab u ah ra'iisul wasaare Rooble oo ay hayaan madaxweyne Farmaajo. waxaase banaanka u soo baxday mucaaradnimada Cabdi Xaashi markii loo eego si uga hor yimaada doorashada boobka uu sheegay inuu wada Mahdi Guuleed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Abukaati Mahdi Guuleed Qadar oo bil ka hor loo doortay xildhibaan golaha shacabka ayaa muujin mucaaradnimo iyo muxaafidnimo toos ah markii laga yimaado inuu naqdinayay go'aankii ka soo baxay dhaqanka beelaha Waqooyi waa soo ka soo horjeestay. dhanka kale waxaa la rumaysan yahay in garabka Cabdi Xaashi uu hogaamiyay shalay shaaciyeen in iskaga bixin hanaanka doorashada golaha shacabka ee kuraasida gobolada Waqooyi taalo magaalada Xamar. sidoo kalena xiriir dhow la leeyihiin xafiiska madaxweyne Farmaajo. haddaba su-aasha ugu badan ee shacabka isweydiinaya ayaa waxay tahay haddaba war ka soo baxay Waqooyi ma noqon doonaa kuwa markale dib u soo dhiga doorashada Soomaaliya oo haatan si dardar looga socdo dalka. Dani ayaa si degdeg ugu safray Imaaraadka Carabta iyo hub uu lacag ka bixinayo. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeen hore la kulmay ganacsato isku leedo hubay dhawaan ciidamada booliiska Boosaaso u qabteen kaasoo xisad ka dhalatay sababtana in ciidamo xirtaan wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Garowe. Saciid Dani ayaa u sheegay ganacsatadan in hubkan uu si laba culaysto ogood mid koowaad ay inay iibsadaan dhinaca BCF oo halis ku sifeeyay haddii gacanta u gasho iyo tan labaad oo ah in ganacsato kale oo hub laga qaaday ayna la sii doon ay qasbi doonto qorshaha in la qariyo ayuu codsaday madaxweyne dood dheer kadib. Saciid Dani ayaa u sheegay inuu bixinayo lacag gaaraysa 2,800 oo dollar oo qiimaha hubkana balse 140,000 oo ka mid ah oo maamo kooban ku bixi doono inta kalena markuu ka soo laabto safarka Imaaraadka Carabta oo bixi doono. waxaa qorshan dhaxaad ka ah duqa ku meel gaarka degmada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha Burtinle oo ganacsatada isku deegaan ka soo jeedaan. tilaabadan ayaa saameyn ku yeelan doonta
ganacsadii kale ee boosaaso dhawaan hubka looga qaaday kaasoo ku jira gacanta laamaha amniga cadaadisna ku noqonaysa xukuumadda deni in ayaga loo lacageeyo ama hubkooda la siiyo. Deni ayaa la filaya in dhawaan isku soo sharxo madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo 2022 dabadaba waxaan ogeysiinaynaa safarka madaxweynaha waxay ka soo kordhaa inaan la wadaagi doono insha Allah. Markaana wararka Puntland ku jirnay xiisad ka dhalatay doorashada golaha shacabka oo ka taagan magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi ahna xarunta gobolka Nugaal. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay warar sheegaya in magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ka jiro xiisad la xiriirta arrimaha doorashooyinka. Hata yeeshee maamulka Puntland warkaasi ka hadlay duqa magaalada Garowe Axmed Saciid Muuse ayaa wuxuu sheegay in aysan jirin xiisad la xiriirta doorashada oo ka taagan Garowe isla markaana beer abuur yihiin wararka lagu faafina baraha bulshada laguna doonayo in dadka lagu jahwariyo ayuu yiri duqa magaalada Garowe Axmed Saciid Muuse. Axmed Saciid oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha Puntland ayaa sheegay in wax dhibaato aysan ka jirin caasimadda maamulkaasi oo xaaladdu tahay mid degan waxaana dadka faafay wararkaas ugu baaqay inay ka waantoobaan wararka qalqalgelinaya shacabka. Waxaan dadweynaha xaqiijinaya in aysan jirin wararka been abuurka ee lagu faafinayo baraha bulshada laguna faafinayo wax dhibaato ah caasimadda maamulka Puntland ayuu yiri duqa magaalada Garowe. Maanta Sabtiya ayaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ka bilaabatay doorashada golaha shacabka oo lagu qaban doono 5 kursi oo kamid ah isha inta badan dadka ku haya magaalada Garowe xubnaha ka soo baxaya ee laga soo dooranayo maamulka Puntland ee xildhibaanada soo socda. Markan waxaa diyaarina Axmed Madoobe oo ku ciiboobay shiiskii lafta gareen ee kuraasta Hob 56 iyo Hob 126. Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lumay mid kamid dhalinyarada u halgantay xukunka joogistiisa waana Maxamed Xasan Idriis oo loo yaqaan Maxamed Gani. Wuxuu ahaa mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 10aad 5 sano la soo dhaafay wuxuuna ku fadhiyay kursiga tirskiisu yahay Hob 126. in qof siyaasi kursi loo diido ma ahan mowduuc weyn laakiin sida loo lumay ninkaas dhalinyarada waa cashir dhaawacaysa shakhsiyadda iyo daacadnimada hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe wuxuu kursigaas dhaafsaday kursiga ku fadhiyay in xigta yihiin oo la yiraahdo Geelle kaasoo yaala koonfur galbeed inta badan kursi la isku bedeshay lafta garan oo siyaasad ahaan wuxuu la yimid inuu aaminsan yahay inuu codka u geyn doono meesha asagoo raba waan Xasan Eelaay laakiin Axmed Madoobe kursigaasi siyaasad ahaan uma wajahan ee heeb ahaan ayuu u sariftay. Axmed Madoobe lafta garan si buuxda ayuu ugu heshiiyay dhaafsiga labada kursi Hob 56 iyo Hob 126. lafta garan wuxuu kursiga Hob 56 u dhaafiyaa Geelle halka Axmed Madoobe uu kursiga Hob 126 sii doono Xasan Eelaay oo kamid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed. Axmed Madoobe waxaa la sheegayaa inay ka imaatay codsiga ah in la isdhaafsado kuraasta Hob 126 iyo Hob 56. dhawaan mar ayaa la sheegay in dhinaca Axmed Madoobe isku dayeen inay balanta ka noqdaan kadib markii la xumaatay sida uu dulmiyay ninka dhalinyarada ee Maxamed Gani oo kooxda kamid ahay balse dhanka lafta garan ayaa sheegay in iyaguna xoojiyeen markii heleen si walbaba 26 bishan ayaa magaalada Kismaayo kursiga Hob 126 lagu sii doonaa Xasan Eelaay kada dhanka Afrika ayaa lagu suuyaa in Geelo soo siiyaan kursiga Hob 56. daawadayaal wali waxa daawanaysa wararka Garmaal TV waxaan jeclahay kasana ku soo gabagabeynaa warka aad ka daawanaysa Garmaal TV nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.